في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لظى شواظ كظم ظلما أغلو الظلام ظفر انتظر ظما على المختار وبعدها كسيرة الرسول مظمة مجازة الفصول. mu'asasada raxme ee xifdinta quraanka kariimka ee ku taala magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer iyo munaasabad ballaaran oo qalin jabina waxay u sameysay dufcadii 11aad ee dhameysatay xifdiga quraanka kariimka ka koobneed 60 arday. munaasabad ballaaran oo loogu dabaaldegay ardaydaasi xifdisay quraanka kariimka oo ka qabsantay gudaha masjidka raxme ee magaalada Burco ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin culimada diin, waalidiin, waxgarad iyo sidoo kale marti sharaf kale. waxaana ugu horeeyay munaasabadaas hadallo kala duwan ka soo isla markaasina faahfaahiyay mu'asasada raxma iyo sidoo kaleeto waxyaalaha ugu waaweyn ee xooga saarto gudoomiyaha guud ee mu'asasada raxma Sheekh Mustafa Aadan. waxaan ugu hambalyeeyaa in ardayda mu'asasatu raxma guud ahaan gaar ahaan waxaan si gaar ah ugu sii hambalyeeyaa in ardayda inamiya hablaba leh oo maanta aynu fadhino xafladoodii qalin jabinta waxaan ilaahay uga barayaa tabaaraka wa tacaala kuwa dhameeyay ee hadda qalin jabinaya iyo kuwa ku dhex jira ee raba inay dhameeyaan iyo kuwa meel kale marayaba in intaba ilaahay tabaaraka wa tacaala quraanka u fududeeyo. mu'asasatu raxma litahfiid alqur'aan alkariim walcinaayati bi'uluumihi inaanan maanta halkan u taagnayn inaan bulshada reer Burco baro oo aan uga warramo. waxaan isleeyahay waa yaqaanaan hadday ardayda tahay iyo hadday waalidiinta tahay iyo haddii ay dadweynaha kale tahay hadday tahay mu'asasaadka tacliimiga ah iyo haddii ay tahay dhammaan bulshada gobolka ku dhaqanba muddo ku dhow 20 sannadood ayaa midhaheeda la goosanayay. geesta kale waxa halkaasi ka hadlay culimo, waxgarad, waalidiin, xildhibaano iyo sidoo kale isuduwa wasaaradda diinta iyo awqaafta gobolka Togdheer waxaana si wada jir u bogaadeen ardayda dhameystay xifdiga quraanka kariimka iyagoo sidoo kale ammaan ballaaran u soo jeediyay mu'asasada raxme ee magaalada Burco. wax kasta oo wanaag ah qof ku sifaysan yahay wuxuu jecel yahay inuu ku sifaysnaado oo qofka dadka u fiican noqdo. arrintaas qof kasta oo si fiican u fikraya waa jecel yahay. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay arrintaasi meeshay ka dhowdahay. nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam khayrukum man ta'allama alqur'aana wa 'allama. waxa idinku khayr badan oo dadka ugu khayr badan qof qur'aanka bartay dadkana sii baraya oo sii gudbinaya. xaqiiqatan hadaad aayaadka ugu horeeya suurada la yiraahdo suuratu raxmaan ilaahay waa raxmaan naxariista khalqiga oo naxariisanaya wax la koobi kara maaha. rasuulka soo diristiisa waa naxariis, quraanka soo dejintiisa waa naxariis. ilaahay subhanahu wa ta'ala wax naxariisaha uu ina siiyay tira ma laha, nicamku ilaahay ina siiyay tira ma laha. suurada waxa la dhextaal looga dhigay fa bi ayyi aalaa'i rabbikuma tukadhiba. nicmooyinka ilaahay baa leena xasuusinaya. awwal nicma ilaahay ina xasuusiya waa nicmada ilaahay uu tilmaamay markuu isamkiisa ku bilaabay ar-rahmaan علم القرآن. القرآن كي أدبرته والله كبره ومعلم كنقطة ونعم ميزان كذا عد قركرت أنا يترين إلا أن إلى هيدا بنسيه ويان كنتي وحن آد وقد عيني يا شيخ مصطفى هوغور ريو يا مؤسسة الرحمة عبودهان وحلا فرحة ما شاء الله تبارك الله إلهي لو شكريو أيين ما أنت تشوقنا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. إن أردنا الحياة الطيبة والحياة السعيدة، إن أردنا الذرية الصالحة، إن أردنا الأسرة الصالحة، إن أردنا الحياة الهنية، إن أردنا الدنيا والآخرة فعلينا بالقرآن الكريم لأن الله قال يهدي للتي هي أقوم أي للتي هي أصلح والتي هي أفضل وأحسن. marka aroofka waalidku ku hadla waxa uu leenahay madrasada maamulkeeda macallimiinteeda iyo dhammaan ardayda intaba aad iyo aad ayaanu wax weeyaan idinku maadinaynaa. quraanka waxa inaga shaqisiiyay nimankii gaalada ahaa ee isticmaalka waxa yiraahdeen macallinka diinta dhigayo quraanka macallidayaana la yiraahdaa mushahar yar buu siin jiray kuwa kale maadiga dhigana lacag badan buu siin jiray. dabeetana inagu lacag waa la imu saleeyo waxaan u leexan xaqii maadiga dadkeena oo dhamay laakiin waxa nasiib u aan imika oo la ogaaday inuu macallinka diinta dhigaa wacan yahay sababtoo ah
dee macallinka iminka dhagtareedka qaatee maadigii kelmadda tawxiidka garanba maayo hambalyo ayaanu leenahay hambalyo duca usoo faran inta qalin jebinaysaa ka wasaarad ahaan wasaaradda diinta iyo awqaaftu aad iyo aad bay u garab taaganta malcamadaha iyo maxadada iyo masaajidada masaajidkan waa masaajidka ugu arday badan maanta 60 baa ka qalin jebinaya warkii ugu soo gaaray weli masaajid 60 ay ka qalin jebiso waa kii koowaad masaajidka raxma masaajidda raxma ugu dambeyntii waxaa halkaasi shahaadooyinkii lagu guddoonsiyay ardaydaasi dhammaysatay xifdiga qur-aanka kariimka oo ka koobnayd 60 arday waa Khalid Bakayle wararka muqbaaya caalamiga Star TV Burco.